Soomaaliya Soomaaliya xooga dalka xooga dalka xooga dalka adinkana guuleysta saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga iyo guud ahaan waftiga qiimaha badan ee halkan socdo hogaamada taliska guud iyo taliyihii guutada iyo guud ahaan saraakiisha kale أولاً أنت أنا هذا الكيجا جلين وحن لا يهاي ضمان جيسياشي غرن كصوماليات عيدن كحوق دل كصوماليات صاحبتني كشهيدي أنت أي كجران جهاد يهلجن كأي كل جيران من كأرجع حسدا إلهه ونحرسته إن الله لي أنت نقدا وعنتنا الله سبحانه وتعالى عف ما تصير أنت كذب أدي هذا نقول أحسن أرنتي ساكنا هرتي نسوي استاجو meelo badan aan hore ugu soo kulannay meeshii koobaadna ma ahan meeshii ugu dambaysana ma aha doonto idanka Ilaahay meel kale ayaan ku kulmi doonaa iyo maalmo kale iyo waqtiyo kale oo aad u macaan badan waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo dhammaan waajibaadkii qaranka iyo shaqooyinkii adkay ee aad soo qabateen meelihii kala duwanaa marxaladii kala duwanaa aad ku soo qabateen runtii ururkan halkan fadhiya mudana wasiir wuxuu nagu leeyahay xusiis gaar ah waxaan u malaynayaa inta badan أيضا عيدن كحوق دلك الصوماليات ويها عيدن كحوق دلك الصوماليات مسؤوليات مده أي سارنتها واجبات مدنا أي فلين أيان حدنا على عيدن كحوق دلك الصوماليات وحجر عيا هؤلاء يقبتين يسيد جيسين ماذا له يقبتين مرة كقاركور يونيديا عن قلب جاك كجوين هل كان يونيد كفردية أورك سد هذا جرجر وأوركي أي أرجع حسده إسكود ضيان سدح ذي أبريل لبضة كل باتني يكود إنه يكون إيران قبل كشاب الله هوسه جارهان أو دقل وعولي قلبي أنا كجوين 10 كي أد ماشى سقول دكتين قفل بايدين كميته هنا واحد سيستا الله أكبر أنت أنا جاي خداني قد يبدأ دب لوجو سودر هالقفة دبلك ومجري يوركان صوما يا يس qaranka Soomaaliyeed marka taas waxay idin tusaysaa xubin kasta ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kamida daruufo kasta ha jiraano marxalado kasta ha jiraano laakiin qarankaagu mar kasta iyo meel kasta kuma moogo mid ka dhintayna madaxda qaranka iyo mas'uuliyiinta kala duwan qalbiyadoona iyo qalbiyadeena ayuu baaqi ku ahaa doonyaa mid ka noolna idanka Ilaahay mar walba wuxuu noqon doonyaa mid kuwa ku qoran qalbiyadeena mar walbana aan xusiisano ummadda Soomaaliyeedna guud ahaan iyo shacbiga Soomaaliyeedna qalbiyadooda ay ku qoran tihiin waxaad haysaan abaal idin kaga haya annagana waxay noo tahay runtii sharaf muwaadinka ama qofka muwaadinka Soomaaliga ama bini'aadmiga ah waxa uu bixiyo ee uu hibeeyo dalkiisa ee uu hibeeyo dadkiisa waxa ugu qaalisan waa naftiisa iyo dhigiisa wax ka dambeeya miyaa jira runtii dhamaanteenba waxaan ku faraxsanahay xubin kasto naga mid ah inay go'aansatay garwaaqsatay laga maarmaana ay tahay inuu qarankiisa u hibeeyo naftiisa inuu bulshadiisa u hibeeyo dhigiisa u daadiyo si ay u helaan nabad si ay u helaan xaslooni iyo kala dambeyn si ay u helaan abni ay ku jiiftaan guryahooda si ay ugu noolaadaan sharaf iyo cisi iyo karaamo oo ay meel walba ku joogaan si ay u nabad galaan naftooda iyo maalkooda waxaad ogtiin cadawga argagixisada ah ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka uu ku haayo ayadoo aanay jirin cid oo kala soocayo hooyo aabe waayeel caruur cid walba